السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ولالكين عبد العزيز. kusoo dhawaada casharadeenna channelkan aan ka bixino. weli waxaan wadnaa silsiladii lagu sharxi jiray programmada ay bixiso shirkadda Google oo runtii aad iyo aad qofkii maaragtay oo ka faa'iideysanayo. maanta casharkeena waa iska yar fudud yahay yaanan waqtigan ugu dheereen. haddii yahay casharka koowaad aad ka dhageysatid channelkayga, waxaad sameysaa ku laabo channelka, subscribe samee gambaleelka ku dhufo si ay cashar kasta oo cusub kuu soo gaaro. asxaabtaada dadkaagana u sheer garee calishaan si ay uga faa'iidaan insha allah casharadan. maanta casharkeena waxa weeye waa taqaanaa qof walba lambaradiisa aad bay muhiim u yihiin. bal qofka marka mobilkiisa masalan uu ka lumo ama laga xado kama walwalo mobilka, wuxuu ka walwalaa lambaradii mobilka ugu jiray. طيب shirkadda Google arrintaas mushkiladda way xallisay oo waxay sameysay qaab oo qofkii gmailkiisa oo lambarada ugu shuban karo ama ku save gareysan karo, bixaas markuu gmailkiisa gashto lambaradiisa u soo dhacayaan. yacni mobilkaaga haddii lagaa xado ama mobilkaaga aad bedeshid ama sim cardkaagii oo kaa lumo lafta mobilka, mar walba waxaad ka helaysaa lambaradaada muhiimka gmailkaaga, iyo lambarka cusub aad save gareysanaysid wuxuu kugu soo dhacayaa gmailkaaga. tayib hadda yar aan barano qaabka aan gmailka ugu wareejino lambarada mobilka igu jira ama maskaxda mobilka ama laftayda. contactskaan aadina, markaan aadno waxaan ku dhufanaynaa menu markaan ku dhufano halkan waxaa ku qoran import iyo export. import oo ah mobile yani lambaro la dirayo, exportna waxa weeye lambaro maaragtay soo qaadanayo ama meel kale laga soo dirsanayo. yacni import marka anigu waxa ii muhiimsan importka ii muhiimsan, waan ku dhufanayaa waxa ii soo baxaya halkan تعداداتي importka iyo تعداداتي exportka. طيب أول حاجة وحي يقول halkan import from story، يعني لمبرات جرا مسكحة موبايلك كجرا أما ربينا موبايلك ku keedsado. iyo import from sim card، يعني لمبرada موبايلك igu jira aan rabo inaan meesha ku save gareysto. iyo import from sim card 2، laba sim card baa igu jira. iyo export story، يعني mobileka rabo inaan kasoo shubto ama sim cardka koowaad baa rabo inaan kasoo shubto ama sim card labaad. طيب aniga waxaan rabaa another phone haddii aan ku dhufto waa mobile cusub aan yani soo gatay iyo kaygii hore. marka lambarada kan baa rabo inaan kan kale ku xawilo, zaman baa iga baxay haddii aan lambar u save gareysto. lidaalika waxaan taabanaya ama bilbilotos ama wifi direct. ana waxa ii fudud wifi direct leeno wifi-ga waxa weeye waa ka fudud yahay bilotoska. waan ku dhufanaya kabacdi next baan dhahaya, mobileka to mobileka kale baan isku qabanaya, hadhowdii way igu dhacayaan lambaradeeda. طيب import from store ama import from، طيب ana waxaan ku dhufanaya import from story. waxaan dooranayaa gmailka, anu dhowr gmail baa igu xiran, gmailkan baa masalan dooranaya. wuxuu yiri no vcard file find of sd card iguma jiro. طيب anigu sim 1 haddii aan ku dhufto may iguma jiraan contact. sim 2 baan ku dhufanaya, waa igu jiraan mindha 155 baa igu jira. select all, import baan dhahaya, waxaa u xawilayaa gmailka. waa kaa wuu bilaabmay inay igu shubmaan. aywa طيب hadda waxaan ku wareejsaday gmailkayga, lambaradii lan igu jiray lafta waxaan u wareejiyay gmailka. طيب maxaa ii soo haray haddii aan lambar cusub save gareysanayo. طيب waa ka baxaya, masalan waxaan save gareysanayaa lambar cusub ayankaa lambarka, create new contact, ayankaa magaca
lambarkaan save garaysanaya. طيب halkan dusha wax ku qoran google account, mumkin lambarka cusub mar walba inuu igu soo dhaco google account saan halkan sameeyey, ama sim 1 ama sim 2 ama maskaxda mobileka. anigu waxaan doortay gmailkan si igu soo dhacaan. markaan save garaysto lambarkan wuxuu igu soo dhacaya gmailka igu soo dhacaya. okay, intaasaan ii sheegi lahaa. ha ilaawina haddii aad wax u baahataan ama ay istifsaar waad ka bixin kartaan commenti. إن شاء الله. أد بأماسنتين. شكرا لحسن استماعكم.